daahfur fiican wax kasta oo cusub xiisihiisa ayuu leeyahay adduunkuna digital u sii guurayay cimro digital meesha taala marka in laga faa'iideysto oo si tartiib ah loo soo cimraysto aad u fiican tahay dadka su'aalahoodu ma dhamaadaan mid wuxuu weydiiyay zakatul fidriga dukaanu saaran yahay biilku ka qaataa markuu mushaarka uu qaatana biilkii iska dhiibaa haddana bishii kale loo sii bilaabaa buuga u furan wuxuu yiri zakatul fidriga haddana lacag kaash markaa haynin dukaanka ma ka soo deynsan karaa si aan zakatul fidriga u bixiyo markaas waxaan ku dhahay beledka maxaa lagu joogaa soo inta un ma marka tii noloshaada ahayd inaad adiga maxay ahayd habaysato tii masaakiinta iyo la siin lahaana aad iska tiraahdo maya hadda maadaama aan kaash haysan dukaanka aad cuntada ka soo qaadatay raashinka kaleba oo aad masaakiinta siinaysan waxaan ku dhoga soo qaado masaakiinta si hadhow markuu mushaarku soo dhacana sidii biilkaaga aad ugu dareysay zakatul fidriga taas uu ka mid yahay fuqarada intooda ha bakhaylina hor soco marka dadku meelay ka soo weydiinayaan waxay dhahay marka qaar sidoo kale deyn ma lagu cimraysan karaa deyn ma lagu xajin karaa culimadu waxay u sheegaan markasta deynta la iska rabo waxay tahay deyn xilliga aad bixin lahayd intii la gaaray qofkii lahaana uu kuugu dhagan yahay oo kule warnaa deynteedii waxa la diidaa marka inaad tiraahdo war suuqta aan soo xajiyay oo aan soo cumraystay markaan ka soo noqdaan deyntaada ku siinayaa marka tan waxay kaga duwan tahay qofkii lacagta lahaa kuma haysto hadda kuguma dhagano isiima kula hadda asaga wali wuxuu kuleeyahay war kaale iga soo doono kaale soo cumrayso kaamana raba hadda 12 bilood oo soo socota kiskis isaga bixi waa qofka hadda ku qabsan lahaa kii ku qabsan lahaa hadii uusan ku qabsanayno asaga uu ku kaalmaynayo hadii si kale lagu maalgelinayo dabakaayara lagu furaayaa 12 bilood baad wixii lagu siiyay isaga bixinaysaa waad ogolaan lahayd in xaqi adduunyada jirtay laakiin xaqi cimradii iyo xajkii warkaale dhinacana adduunka loo ma shaqeystay aakhirada loo shaqeystay waa lagu fududaynaa taysiir u imo waxa lagu taysiir hadii leeyahay ana waxay la tahay wax mushkil oo ku jirta inaysan jirin sidaas la mid ah markay dhahan dadka telefoon lagu soo sheegay ramadaankii ma la soomayaa markaas waxaan ku yiraahdaa hadii laga yaro shirkadaha xawaaladaha oo telefoon lagu soo diro oo lacag ku taal lagu yiraahdo shaki ma gelisid cibaadada ilaahay maxay shaki u gelinaysa waraadka aadaay marka wax badan waxa jira dadka u baahan in loo fududeeyo adduunku maanta halkaas u maray horaha loo socdo hal abuurka dhalinyarada hal dhiiri geliyo cibaadada qof ay dhici karto inayna u suurta gashin muddo intaas la eego loo fududeynayo inay soo galayso wa tacaawunu cala albirri saas inay noqoto dadku wixii ku cusubna waa dib ma iska baran doonaano bariyan waxaan sameeynay baratik si loo baro dadka xajka aadaya sheekh maxamuud sheekh ibraahim suulay iyo barnaamijka la sameeyay markaas waxa la keenay sawir kacbada ah oo mujassam ah oo yaani meeshii la mari lahaa iyo wixii u sameeysan qaar iska soo jiray kacbada ya xamar la keenay war kacbada xamar ma keenin waxa waa darsi baratig oo dadka lagu fahamsiinay meesha istaag lahayn ka faa'iideyso marka insaanku wuxuu soo noqon marka saacad ayuu leeyahay wax kasto oo horumar ah insaan loo sii dhiirigeliyo oo loo fududeeyo xaqi adduunka iyo xaqi aakhirada isku wado aad u fiican tahay maxay leeyahay dad muslimaan nahay labadaba waan u baahannahay ducada aan ku ducaysanana markasta waxa ugu jaamicsan rabbana aatina fid dunya hasanatan wa fil aakhirati hasanatan wa qina cadaaban naar marka sida adduunyada aan ugu dadaalayna inaan wax xasilino wax kasto oo xaqi cibaadada inoo fududeynayna nafiya shaydaan iyo son ku dhihin ruuxana isku gelino ya adigoo markaas xaqi adduunyada laga yaabo inuu ku jiidayo uu ku diidan yahay inaad soo ducaysato oo meelihii barakaysta aad tagto oo yeesan kaas ko noqonin dhalinyarada hawsha soo qaban qaabisayna aad ugu mahadsan yihiin waxaana keenaya horumarka uu ku socdo adduunka oo noocaas oo kale xawaa'ijta dadka oo dhan ayaa waxay noqotay saas fudaydka in loo wado in dhinacii kale oo diinta iyo cibaadadii lagu agwado oo dadkii loogu kaalmeeyo in diintiina ay bartaan ahkaamteedana ay qaataan cibaadaadkooda ay soo gutaana aad ay u fiican tahay waa mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh